ognahay adduunkii dhaleecayn lahaa ee wax ka qaban lahaa inay hor taagan yihiin oo leeyihiin annaga xal u wadna waxaanu caddaynaynaa xal ay wadaan inuusan jirin waxaanu caddaynaynaa wada hadal socdaa inuusan jirin waxaanu caddaynaynaa sida dawladdu ay wax ku waddo inaan nabad iyo heshiis laga helayn waxaanu leenahay idinkaa laydiin dhaariyey midnimada Soomaaliya inaad ilaalisaan waa madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo baarlamaanka Soomaaliya waad ka soo bixi weydeen haddaydan ka soo bixi karayn dadka halganka ku jira ee Soomaaliyeed ee midnimada badbaadinaya hal u goynina lugta ha qabanina ha hor istaagina ha kaalmaynina kala go'a Soomaaliya ha kaalmaynina waxaa cad oo aan gabasho lahayn inay si hoose ula shaqaynayaan xukuumadda Soomaaliland ee dadka Soomaaliyeed badaaficda maalin walba la dhacaysa inay hortaagan yihiin cunaqabatayntii la saari lahaa inay iyagu si indirectly ama ha garanayaan ama yay garanin ama wanaag ha uga jeedaan ama xubaan ha uga jeedaan in ay iyagu wadaan barnaamijka in cunaqabatayntii la saari lahaa dambiyada dagaal ee meesha ka dhacay Muuse iyo codkiisu ay wadaan in xukuumadda Soomaaliya ay hortaagan tahay inay garab ku siinayso marka si kala loo dhigo arrinta Soomaali waan u sheegaynaa qarin mayno dawladdiinii baa ka shaqaynaysa na dulminaysa garab siinaysa kala go'i ummadda Soomaaliyeed haddaynu ku raacsannahayna aynu gacmaha u taagno haddaynu diidannahayna mowqifkeenna aynu caddayno weliba baarlamaanka Soomaaliya batalaya ummadda Soomaaliyeed waa in uu si mugle arrintaa mooshin uga keenaa mooshinka kale oo bilaamicno ka socda baarlamaanka waa arkay tan dhabta ah ee ilaahay kula xisaabtamayo waa dadka Soomaaliyeed ee la dulminayo ee xukuumaddii jirtay ay qaybta ka tahay dulmintaas inay ka hadlaan inay u yeeraan madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha inay wax ka weydiiyaan sababta qaranada midoobayna ay u leedahay dambiyo dagaal baa dhacay ciidamadu ha ka baxaan meesha ay ku jiraan ciidamada dulmiga sameynaya ha ka baxaan dawladda Soomaaliyeed ay leedahay iyagoo halka jooga nabad hal la raadiyo arrintaas aanu rabnaa in baarlamaanka Soomaaliya uu weydiiyo xukuumadda jirta iyo dawladda maanta talinaysa ee talada gacanta ku haysa ilaahay waxaan ka baryayaa dadkii maanta halkan walaalahood uga hiiliyay aba fikirkii wax lagu qabtay Cali Yar